بسم الله maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal xasan cali macalin barre xasan boy 22 jir ah ina faadumo maxamed abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir sayid cali aadan nuur steen boy 24 jir ah ina daahiro abuukar ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir muxudiin maxamed axmed khaliif CJ 19 jir ah ina maryan saalax yaxye ku dhashay shabeellada hoose degan wada jir kuwaas oo xafiiska xeedaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qayb magaalada muqdisho soo geliso qaraxyada eedeysanaha koowaad xasan cali macalin barre waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay dhigista gawaarida qaraxyada goobaha ay shacabku ku badan yihiin isagoo taariikhdu markay ahayd 26 bishii 11aad 2018 dhigay suuqa kaawagoday ee degmada wada jir gaari noociisu ahaa fildhar cadaan ah gaarigaas oo ku qarxay isla goobtaasi iyadoo ay ku geeriyoodeen 12 ruux kuna dhaawacmeen 7 ruux oo kale eedeysanaha ayay ciidamada amnigu qabteen isagoo wada ka ah gaariga ku qarxay suuqa kaawagoday ee degmada wada jir eedeysanaha labaad sayid cali aadan nuur steen boy waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo gelinta magaalada muqdisho gawaarida ay ka buuxaan walxaha qarxa iyo farsameyntooda sidoo kale eedeysanaha waxaa lagu eedeeyay in uu eedeysanaha koowaad ku tashkiiliyay ku biirista kooxda al-shabaab qaybteeda qaraxyada soo gelisa magaalada muqdisho isla markaana baray wadista gawaarida una dhiibay gaarigii ku qarxay suuqa kaawagoday 26 bishii 11aad 2018 eedeysanaha saddexaad muxudiin maxamed axmed khaliif CJ waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab iyo in uu hay'adaha baarista u sheegay magac been ah dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane xasan cali macalin barre xasan boy uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in abtigii sayid cali aadan nuur uu ku tashkiiliyay in uu la shaqeeyo kooxda al-shabaab kadibna abtigiis uu baray wadista baabuurta si uu gawaarida qaraxyada u geeyo meelaha ay kooxdu doonayso in la dhigo sidoo kale eedeysanuhu wuxuu sheegay in gaari uu ka soo waday tabeelaha Sheekh Ibraahim uu geeyay degmada wada jir gaar ahaan suuqa kaawagoday kadibna uu gaariga shil la galay sidaasna ay ciidamada amnigu ku qabteen intii la wareysanayana uu qarxay gaarigii uu waday markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane sayid cali aadan nuur uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in eedeysane xasan cali macalin barre oo uu abti u yahay uu ka xaliyay shil uu ku galay xaafadda kaawagoday isagoo sheegay in eedeysanaha uu watay gaari noociisu yahay fildhar cadaan ah kaas oo ku qarxay markii dambe suuqa kaawagoday markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedeysane xasan cali macalin barre oo waday gaari noociisu yahay fildhar cadaan ah uu shil galay sidaasna ay ku joojiyeen kana soo dejiyeen gaarigii uu waday intii ay wareysanayeenna uu qarxay gaarigii qaraxaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedeysanuhu uu isku dayay inuu baxsado hase yeeshee ay qabteen markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah dukumiintida kale ah cadaymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha koowaad iyo labaad liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qaraxii ka dhacay suuqa kaawagoday degmada wada jir 26 bishii 11aad 2018 sawirrada muujinaya burburkii ka dhashay qaraxa furaha gaarigii fildharta ahaa ee qarxay oo uu waday
eedaysane xasan cali macalin barre markay dhegaysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 1 xasan cali macalin barre xasan boy 2 sayid cali aadan nuur stiin boy ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dembiile shabaab xasan cali macalin barre xasan boy dil toogasho ah 2 dembiile shabaab sayid cali aadan nuur stiin boy xabsi daa'in sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in muxudiin maxamed axmed khaliif CJ xabsiga laga sii daayo ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan raacfaan wabillahi tawfiiq